بسم الله waxaa maanta booqasho rasmi ah noogu yimid magaalada Muqdisho xogayaha guud ee ururka IGAD Dr. Wakena Gabiyo iyo wafdi culus oo hogaaminayo ka tirsan waaxyaha dhan ee ka kooban yahay ururka IGAD sidaad la socotaanba xogayaha waa cusub yahay muddo 3 bilood ayuu hadda hay jagada marka booqashada ugu horeysay asagoo ah xogaye iyo ku yimid magaalada Muqdisho maantana airportka wuxuu ku soo dhaweeyay wasiirka iyo wasaaradda arrimaha dibadda kadibna wuxuu la qaatay kulanka ugu horeeyay oo ugu tagay islaan ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre kala wada hadlay xiriirka u dhaxeeya ururka iyo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya inay ka mid tahay aasaasiyaashii ururka IGAD sidaas daraaddeed maanta wuxuu ugu yimid xogayaha inuu horta soo salaamo kadibna uu kala hadlo sidii wada shaqayn xoog leh looga yeelan lahaa ururka IGAD iyo dowladda Soomaaliya ururka IGAD waa urur goboleed ay ku beeysan yihiin 7 dawladood oo Afrika barigeeda ah wax badan wuxuu ka qabtaa Soomaaliya iyo wadamada dariska ah xafiis ayuu halkan ku leeyahay wuxuu leeyahay ergey gaar ah marka sidii waxaan ka wada hadalnay sidii looga faa'iideysan lahaa ururkaas waxyaalaha uu sameeyo iyo sidii dowladda Soomaaliya iyo ururkaba ay wada shaqayn dhow u yeelan lahaayeen